xuska sanad gurada 17aad ee ku beegan asaaska dowladda Puntland ayaa laga xusay deegaanka Afur ee degmada Ceelaayo ee gobolka Highland. Munaasabadda lagu xusay asaaska dowladda Puntland waxaa ka soo qayb galay maayirka degmada Ceelaayo Caawil Ibraahim Xasan, maayir ku-xigeenka degmada Ceelaayo Jaamac Maxamed Xasan Siiqe, taliyaha saldhigga degmada Ceelaayo Faysal Cali Xisi, taliyaasha ciidamada saldhigyada Afur, xildhibaanada golaha deegaanka degmada Ceelaayo, odayaal, waxgarad, dhalinyaro, haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Intii ay socotay munaasabadda loogu dabaaldegay xuska 27 sano guuradii ka soo wareegtay dowladda Puntland ayay bulshada deegaanka Afur iyo maamulka degmada Ceelaayo dowladda ka codsadeen in adeegyada asaasiga ah ee dowladnimada ay baahi weyn u qabaan una baahan yihiin in la soo gaarsiiyo. Salaamaya shacab weynaha reer Afur oo ka tirsan deegaan ka tirsan degmada Ceelaayo ah waxaynu isugu nimid xafladan qiimaha iyo qaayaha badan 1 Agoosto asaaska Puntland. waxaan hambalyeeynaa xafladda quruxda badan oo ka hirgashay maanta deegaanka Afur. waxaana hirgeliyey Ilaahay ka sokow ummadda joogta oo ku dhaqan deegaanka Afur, hadday tahay shacabka, waxgaradka, dhalinyarada, haweenka, ciidamada sharafta leh ee jooga dhistanka difaaca Afur. si fiican baan u hambalyeynaynaa. maalinta Puntland la asaasay. Puntland waa deegaamada Puntland waa dadka la dhaho iyo dalka. in loo dabaaldegana waa xaq. intaa markaa ka gudbo deegaanka Afur iyo degmada Ceelaayo. markaan la hadlayo madaxweynaha fariinta u diray waxay tahay degmada iyo tuulooyinkeeda ay xukunto inuu indho gaara ku eegto oo wax u qabato. waa arkaa dadka hadda jawaartay ciidamadii baa jooga. biyaha u jira 6 kilomitir biyahaas u jira 6 kilomitir waa laga oomaya. run ahaantii waxaan oran karaa dad baa hadda biyo la'aan u seexda Afur gudaheeda. booyadii waa booyada yimaada dad doona qayb bay ooyaanba ka tagaa iyagoo xaqna maaha maadaama ciidankii joogo oo amnigeedu sugan yahay oo dadka intaas xabadda ku soo dhacaysa u yahay oo meeladu soo baabiisay oo saldhigga ugu weyn Puntland ay tahay oo ciidankii joogo oo lagu biyalay ciidanka biyala booyadama haystaan. marar baan ku hor waa lagu jiray waxa jiray warad dadka waraabaya oo biyo maaha booyada maaha. tallaabada u koowaad madaxweyne waxaan ka codsanaynaa meesha ceelka 6 kilomitir jira in dadka biyo gal lagu sumo. xafladan waxay daarad tahay 1 Agoost asaaskii Puntland. halkan waxaa salaan diiran allana ugu maalay salaan uga dirayaa madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni, madaxweyne ku-xigeenka, gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudoomiye ku-xigeenka. intaba waa salaamayaa ciidamada Puntland oo dhan meel ay joogaan difaac kaga jiraan Calbar iyo Calmadow iyo jiidahaba. waxaan leeyahay hambalyo iyo salaam baan halkan uga dirayaa. sidaasaan magaranaysaayay ku soo dhoweynaynaa. si gaara waxaan ugu mahadcelinayaa shacabka degmada Ceelaayo ka mida oo deegaanka Afur oo ilaa iyo shalay soo dhoweyn iyo intaan ku jirta kormeerka ay xukunto deegaanka Ceelaayo, degmada Ceelaayo iyo deegaanka Afur noo heelan ahaa gacmo furan noogu soo dhoweynayey. waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad baa idin mahadcelinaynaa. taariikhdii goorta ciida xafladani waxay tahay August 1 Agoost oo Puntland 27 jirsatay. 27 sano lagu caalamaanayay, lagu soo guulaystay, lagu barwaaqoobay. nin basi kasta hagaadho raxmadda Ilaahay subxaanahu wa ta'aala gaadho. waxaan salaamayaa madaxda Puntland hoggaamisa ilaa madaxweyne ra'iisul baarlamaan 3 gole iyo xukuumaddaba waa salaamayaa. intaan markaan ka gudbo
goobtan aan joogo waan haddeed joogaan uma arki jirin dhulkan oo waxaan nin reeroogaa 8 bishii 9 baa igu dhalatay waxaa joogay dad wanaagsan oo aad iyo aad u wanaagsan oo waxqabad u baahan baa jooga waa magaalo dagaal ka dhacay burbur baa gaadhay weliba khaasiir arrimaha bulshada oo ku dhowaa xeryaha ciidan waxaa gaadhay qurur fiican iskuulka MCH-ka guryo kale oo meesha ka dhisnaa stationkii wax walba waa burburay waa laga markaan eego imaajin ahaan ilaa 60 guri oo faarda oo wax jajaban iyo wax jiingada baa jira سعيد عبد الله الدني waxaan ka tirsanahay hooyooyinka degmada Ceelaayo ahna xildhibaanada golaha deegaanka madaxweynaha wax ku dhaliilaya madaxweynuhu aad iyo aad buu nooga gaabshay annaga shacabkina soo doortay dacwadadii waan ka dhamaan weynay waxaan noo soo dantayna dadkayga wax u qabano dadkaygana dawladdu aad iyo aad bay nooga gaabisay meel kasta ay joogto deegaanadan calmidow خيرات قبل شوي صباحا لكن دولته way ka gaabisay wax allaale wuxuu qabatay masjido iskool male arday male biyo male aad iyo aad waxa loo dhibayay meel kasta ay calmadow hoostagta inay wax biyo lahayn degmada Ceelaayo waa degmo balaaran waxay xukuntaa 12 deegaan 12 deegaan degmo kasta tirtid waa laga xidhay waxaan leenahay madaxweyne dhulkaas 12 sano ay Puntland jirtay oo aad ka sarqamisay inay rajo weyn dadkan gashay oo gudbadaadii xalay ay kamid ahayd in horumar badan la qabtay wax badan oo asaasi nolosha asaasiga kamid la qabtay oo caafimaad kamid yahay waxbarasho kamid tahay wadooyin kamid yihiin dekeeda kamid yihiin 720 ka sano anagu waa sugaynaa deegaanka hol laga qabo wadan looma qaban biyo ceel looma qodin looma dhisin maxaan ku raadnaa goobo caafimaad ma leh goobo waxbarasho ma leh dadkaas waa sugaya 720 ka sano dadkaas waa ka oomayeen dawladda Puntland maanta marka waxa loo baahan yahay hadiiba aad u soo jeesatay deegaamaadkan calmadow oo afur Ceelaayo Maraje deegaankaas waa deegaan balaaran oo aad iyo aad u tafdheer oo macdantii taalo oo dahabki yaalo dadkeediina uu sawirka maanta ku muuqda leeyahay baahi ugu qaba dawladnimo iyo wax qabad la'aan cabasho aan xisaab lahayn ba dadkan qabaanin 720 ka sano laamiyada iyo horumarka ay Puntland gaadhay dhulka qaybtii laga dhisay hadda waxaan ku sheegnaa madaxweynaha loo sinayn Puntland wax qabadkeeda waxaan baaqdeer u tirayna dawladda Puntland oo ka yahay hormuudka Saciid Cabdullaahi Deni baaqa aan u dirana waxa weeye calmadow meesha la yiraahdo waa ogtahay burbur baa ka dhacay burburka ka dhacay ummadii degan waa ogtahay waa ka qaxday waxa weeye wali qaxiibay ku jirta waxa weeye saa dareemayso degmo Ceelaayo hadda calmadow maqasho waa degmo Ceelaayo ilaa meesha loo gaaro qancajiif ilaa afur waxa weeye mar baa jirtaan cid ku harin wax ka dhacay wax dib dajina wax maamul oo dib ugu noqday oo gaaray ma jiraanin waxaan malaynayaa meesha la yiraahdo afur iyo Maraje labada magaalo oo ugu waaweyn oo wax ka soo baan 100,000 oo kiilo markaan metro 50,000 oo beeya iyo 50,000 oo mayda ka soo baxa ashuurtoodu waxay gashaa waxa weeye Puntland Maraje hadda waa haawanaysaa oo waa la socotaa dareenkeeda iyo hawshan waa la socotaa madaxweyne baaqa la soo dirayo oo laga soo dirayo deegaanka degmada Ceelaayo iyo deegaamadeeda waad aragtaa baahiyaha ka jira waana lagu sheegay waxaan ka codsanaynaa inaadan indhaha ka rogan inaa wuxuu gobolku dadka laga dirayo baaqyada waa waxaan hambalyeynaya ummadda Puntland meel kasta ay joogto shacabweynaha reer Puntland meel walba ay joogaan ciidamada
مدحوينها دمان قرياشا سندوان هذا السلام waxaan halkan codsi baan wadannaa wax ka mid ah xildhibaanada degmada Ceelaayo madaxweyne waxaa dhul baan kitaab baan waxaan u saarnay ururaal samaysay dimuqraadiyad baa Puntland loo sameeyey baanteen dimuqraadiyaddii baan ka dadkii ku soo doortay baan deegaanka soo nahay oo aan xildhibaanada iyo shacabkii soo doortay kusaak taagan yahay dowladda masku jeedada ilaa maalintii aan nabadaadiyey ilaa saacadda wax aan keenay deegaanka oo aan dowladda uga soo qaadnay ama dowladdaas loo keentay haba ilaatay kilinka madaxweynaha ugu yaro ka bilaa salaamka bacdin halka waxaan munaasabada sharafta iyo qiimaha badan waxaan soo tagnay inaan ka xusno hooyo labaatankii luuliyo ee Puntland waa salaameynaa waa soo dhaweynaynaa dowladda hawlgasa sidee hooyo labaatankii waa soo dhaweynaynaa waxaan ugu horeeya dowladda Puntland madaxweynaha Siciid Cabdullaahi Deni madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka xukuumadda oo dhan kulli waa salaameynaa waxaanu ka hadlaynaa baahiyaha aanu qabno intaan nahay degmada Ceelaayo iyo tuulooyinka xusuusto waxaanu ka cabanaynaa oo dowladda aanu ka codsanaynaa waxqabad inay wax noo tirato waxaan hambalyadiyo suugaan u curinayaa maamulkeena Puntland oo caalamiga maamulkeena Puntland oo caalamiga bulsho isana guura leenay u sacabtuna bulsho isana guura leenay u sacabtuna maamulkeena iyo bulshada waa salaamaya mudana madaxweyne heena salaamaya mudana ku-xigeenka isna waan salaamaya dhammaan baarlamaanka iyana waan salaamaya